hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dawladda Ethiopia waxaan ka sugaynay wada hadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacbi la haysto weeye hantida Ethiopia anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta mana aqbalayno shacbiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa Soomaali baa iska leh hantida Soomaali baa iska leh wada hadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka Ethiopia iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqadayadu way ku yarsan tahay Ethiopia qolada saddexaad baan nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada kaliya ee la oran karo waa la gumaysaa hadii kulli muxuu ahay halbeegyada oo dhan lagu dheeririyaa nahay marka hantida Soomaalida shan bay ku leeyihiin iyo bahashi biyahanaga dhulkanaga ku jiraan aan wali yeelanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba Soomaali baa iska leh laakiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu leeyahay wadan quraynu nahay wixii soo baxa wadankeena ka soo baxa wala ku wada faa'iideysanayna haday noqon lahayd bun haday noqon lahayd biyaha Ethiopia dhulka biyaha badan in si guud looga faa'iideysto ka hadlaya ma ku muuqata arinta dal qurayna waa in lagu heshiiyaa yaa isku ogolin dal Ethiopia la dhahaa yaa Ethiopia samaystay abasiinaya ahayd yaa hogaaminaya awoodda si loo qaybsanaya taariikhda qoran maxay tahay luqadda rasmiga ayaa leh culture-ka Ethiopia waaye identity-ga uu tilmaamay Ethiopia yaa leh yaa ku sheer gareeya baawarka yaa haysta Soomaalida doorkay ku leedahay boqolaal su'aalood baa jira Ethiopia inuu nahay dal quraan nahay Afrikaan nahay oo kale iska yiraahdo weeye marka waxa weeye arrintan dhibaatooyinka Ethiopia haysta dadka Soomaaliyeed qadiyada Soomaalida ogaadeenaya ay kamid tahay in si run ah loo wajaha weeye in indhaha laga laliyo ama la ismoogeysiiyo ama ereya macmacaan si beelafta waad garanaysaa sagaashameeyadii ereya macmacaan bay ku bilowday kadibna waxay bilowday inay muxuu ahay shacbiga Soomaaliyeed xasuuqdo ummadaha kalena ay adoonsato marka dal quraanay waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maabka Ethiopia heshiis lagu wadaha dawladda Ethiopia waa inay runta waajahdo in la isdiidan yahay qeyrata horta hore oo heshiis lagu ahayn arrintan anagu haddaan Soomaali nahay wax gooni aan tirsanayna magdhow gooni aan Ethiopia ku leenahay ay ka talin baan u baahannahay dad laga faquuqay Ethiopia hantideeda iyo dawladnimadeeda iyo calankeeda nahay dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaa nahay marka shan baad ku leedihiin iyo dalka waan wada leenahay kuma fila arrintaas waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu maruu ka hadlayay arrintan hore uu yiri in 40% ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabcan Soomaalida ula jeeday hadii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay ma la qabtaan fikirka annagu lama qabno waxaan qabnaa hantidan 100% Soomaali baa iska leh goorma Ethiopia la leeyahay Ethiopia xoog bay nagu qabtay sidee rabaan in lagu wada joogo xoog ma qori caradi baa nalagu haysanaya dadka Soomaaliyeed waa inay sayid ka noqdaan gurigooda hantidooda go'aankooda siyaasiga dhaqankooda taariikhdooda iyo jiritaankooda waa inay iyagu sayid ka noqdaan waa in loo yeedhiyo ma aqbalayno waa gartay sanadii 2007 cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiinees baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay ujeedaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodeysay maaragtay markaan aad ku doodeyseen ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu sheegay in sheegashada kheyraadka iyo waxa Ethiopia ka soo baxa cid gaar ah sheegata dagaalo iyo halis un bay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan sidee kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo kheyraadkana laga wada faa'iideysan karo horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo ONLF matalayso lala galo arrimo badan baa iskor saaran ay ka talinta miiska saaran waxaa saaran magdhow baa saaran dad la gumaysanay marka waa inay dawladda Ethiopia aqbasho in dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyagu ay ka taliyaan in si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo yaan ogolahay dastuurkan Ethiopia u yaala TPLF baa xariiqday kii ka horeeyay Migisa yeeriyay kii ka horeeyay Hayle Salaasa yeeriyay dadka Soomaaliyeed door kuma leh marka waa uu loo talinayaa taasi ma shaqaynayso waa tii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la dagaalay yahay xudunta khilaafaadka geeska Afrika waa qadiyada ogaadeenaya indhaha in laga laliyo maaha been in la isku qanciyo maaha hees iyo ereyo qurux badan kuma fila arrintaas dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa halgan gobnadoon aan ku jiray inaan si midaysan u waajahno marxaladan ay u baahan tahay